قروحو هرمرا شقلا هرمودكي أقر لي مركي تعا هيغانوغو هادان هوشيتنا هقود هيغانوغو هادان هوشيتنا هقود هرجوغو هودو هاول كركي وحقب الليو هبادكا وحقبني وائن إلا كره فايو هلو أغادا هبادكا وحقبني وائن إلا كره فايو هل إن حفيز أيد الشقالوها عيالته أو وحي عطيا لقينيو أما عبشا إن ما أنت قدومي أيد الشقالوها سومالان وحفيز كاسي كده دالو إن هالكي أجيسل لو تقلا هالكنون عطيا ده إيو أراجيد لقيسو كدمنا أي سلاسي شقالوه أي وقاهر بحان دباتدي أي كل مجرين raadinta shaqaalaha iyo muddo badan oo kaga lumi jirta Hargeysa waxaan taa uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland ee fursadda si fiican gobolkan u dalsiiyay waxaan hadaba ku soo dhaweynaa si ujeedada furitaanka xafiiskan uu inooga warramo isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolkan Awdal Maxamed Nuur Muuse Geela ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim أولاً وحن هلا إله نوصل تقليي إن كل كان مالته ونوصل قلب طلبات وحن سلامة يا لما وفتي وهو جامينيو الدنيا هي تشقالها ولما أنتو وحن إثناء هلك أنك سلامة يا الدنيا قبلك ما يركض جملة وقاشها إسكتوياشها هي بعض الصحابة لما نروح ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك حيجا وحان آدو ومهلقيا ودوني أنا هالكن مهلق كوبات كبحيو إن دومية هاي تشقالها أو إسقو ما تسولة جلي مركي وريسة كرجع إن حفيز كان وهالكن كفورما أولي بعد ما يستلم شقاليسي طلب كيسي يجاديد كيسي ومحاولك أعتقد دراميسا إنه هيسي يولي هاي وجيت فوق وديبي جلنا وقبنا يشتغل هاي تشتغل مسؤولية ديرا إلا هير دم وقبنا مسؤولية قالوا داري هاد بانو محلنا غيرتي طلبات أنا وحنا صارنا هدان كهاي لهان عن هاي هير قبل إن أنا قلنا قبلنا هيسي جا أنا متقنا هير جلنا ودوغو تغنا شقاله gobolka meel kastuu joogo heer tuulo heer degmo heer gobol oo ma ahan shaqaalaysiin iyo ku ilaalin shaqada iyo inuu guto ma waxa ka muhiimsan inuu xuquuqdiisa haysto shaqaalahani inuu dayacayahay inay wax ka maqan yihiin in isagu ma taqaanaa hawl ku fulisaa hawsha ugu weyn ee mas'uuliyadda hay'adda shaqaaluhu leedahay waa taa waxaan aad ugu mahadnaqayaa isku duwaasha oo iyaguna dad wanaagsan oo aqoon leh oo iyaguna garanaya waajibaadka hay'adda shaqaaluhu ay leedahay iyo mandate-keega oo iyaguna ku xisaabtama waxaan imigana ku soo dhaweynayaa master kulmiye isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka si uu magaca isku duwayaasha ugu hadlo ku soo dhawo kulmiye waxaan maanta soo dhaweynaynaa xafiiska cusub ee ku soo kordhay gobolka Awdal ee hay'adda shaqaalaha Somaliland markii koowaad ay ku yeelatay gobolka Awdal waxaan waa xafiis loo baahnaa howlo badan naga xinaayeen xafiiskaas wuxuu fulin doonaa haddii aan ka hadlo waxyaalo fara badan oo Hargeysa lagu tagi jiray maadaama ay shaqaalaha xulashadooda temporary jooga wasaaradaha oo muddo fara badan sugayay sidee u heli lahaayeen xuquuqdoodii iyo xaqooda waxaan soo dhaweynaynaa marka xafiiska cusub wax badan buu qaban doonaa aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxaan u mahadcelinaynaa isku maxaan leedahay gudoomiyaha guud ee hay'adda shaqaalaha qaranka barasaabka gobolka madaxda dhammaantood isku duwaasha ugu horeeyaan cuqaasha maayarka dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax kaloo imika maanta meeshan uu dhammaystiray isku duwo uu dhammaystiray
wax la kaloo la yiraahdaa oo meeshan laga sheegana ma jirto waxa kaliya oo leeyahay waxaan jecelnahay ka wasaaradahan inaad maaragtay aan soo dhaweynaa ku soo dhawaada annagu waxa weeyaan kulay diyaar baan ninahay inaan waxalaaliyo wixii maaragtay facility aan nila qabano muddada yaray وحفيزك نلا دجنانا وحياة فربضان وأكتيفيتي فربضان أيام آد ودريناي حتى شقالي بأمور كوج الدسمي وأمرك هو رئيسي قفكي شقالها ها وكسو يكتو مال وكيران كرا وحلا important way ما هو شقاء ما لكن مرة قفك وحمهمة إنه قف دريمه إنه وحكتم بين وليه gobolku maanta wuxuu dareemay in hay'ad ka dambaysa shaqada iyo shaqaalaha labadaba waa laba shay oo isku xiran wuxuu gobolku maanta wuxuu dareemayaa inuu leeyahay meel ka dambaysa waxaan u yeerayaa Mr. Muuse Elaabe garaadka ku soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahadda koobaad iska leh Ilaahay amarkiisa lagu socdaa isaga inoo qadaray inaan iskugu nimaadno halkan marka xigana waxaan salaan iyo mahadnaq u soo jeedinayaa waftiga inooga yimiday Hargeysa ee gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu uu horkacayo dhammaan wasaaradaha kale iyo isku duwayaasha uqaasha bahda saxaafadda barasaabka gobolka iyo maayarka raaliga ahaada inaan horiisiyahay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay mar labaad soo dhawaadaan leeyahay run ahaan waa xafiis inaga maqnaa gobolka waxaan leenahay gudoomiyuhu sida uu soo dejiyay gobolka xafiiskan uga furay inta maamul daadejina uu sameeyo ilaa degmooyinka iyo ilaa maaragtay meelaha kale ee gobolku in la gaarsiiyo waa waxaan aad iyo aad u rajaynayno waayo waxa weeyaan sida kuwa ragga horeba sheegay waa xafiis moralka dadka shaqaalaha iyo dadkaba kor u soo qaadaya weeji caaqil daahir ayaan ku soo dhaweynayaa Cismaan fadal ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida weydii farxaan u tiri inuu nooga wada farxiyo hay'adda shaqaalaha iyo Soomaaliland uga farxiyo uma tahay chief caaqil gudoomiyaha diraad sida uu sheegayo daahir waxaan imkan ku soo dhaweynayaa maayirka degmada Boorama maayir Salebaan Xasan Xadi ku soo dhaw gudoomiye runtii arintan waa arin aynu filaynay runtii oo in badan inaga maqnayd farxaan waan uga mahad celinaynaa talaabada horumar kale ee uu bilaabay because of berigii hore shaqaaluhu qofka shaqaala ah ama Hargeysa uu warqad kale iman jiray ama isagu bahlan ka caraabi jiro oday adeerkiisa si kaxayn jiray haddii maanta xuquuqdoodii halkan loogu keenay oo la yiraahdo xaqana xuquuqdiina lagu qiimeynaya oo xafiiska leedka furaya waa mahadnaqaynaa farxaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxa kaloon isagana u mahadnaqayaa daahir oo maanta halkan isku duwa wasaaradda siyaasadda oo hostigareeyay hay'adan farxan tan uun maaha wasaaradda hay'adda shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha oo ay faa'iido nagala joogto waxa hostigareysay wasaaraddan waa dhulkii wasaaraddan lahayd anu wasaaradana ka tirsanaa ilaa imikana qulubtan kala socdaa dhul runtii markii wasaarad badan baa loo waayay dhul loo dhiso waxa la raadiyay dhul waxa la wasaaradda deegaanka oo kaliya ayaa hostigareyn karta wasaarad kale haddii maanta tu saddexaadna ay ku dartay wasaaraddaasi aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kaloo halkan ka qiraya maanta wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaji Bandara inay tahay qof aqoon u leh deegaanka iyo shaqadiisa runtii kullay Hargeysa oo isku aragnay wax badanna waanu soo nidhi waxa la doonayaa dhirta iyo ka shaqaynteeda iyo daryeelkeeda in laga wada shaqeeyo waa wasaaradaha wali maamul daadejinta aanan soo gaarin laakiin si dadban baan u wada shaqeynayno deegaan marka la leeyahay annagaaba deegaan kale naga soo doorto marka waxa weeye in anaga la fiigo u sii heelano wax waajiba farxaana waxaan leeyahay
dariiqa wanaagsaneed furtay waa mid shaqaalihii moralkooda kor soo qaaday kol haddii aynu maanta wada shaqaynteena soo gasho dawladihii hoose iyo hay'adda shaqaalaha algasal iyo la soo galayo waxaynu insha Allah shaqadu inta ka sii xooganaan xoogaalna waynu isku noqonaynaa waxaan doonaynaa haddii la yiraahdo xafiiskeedii insha Allah inaan bixino oo habay u fogaado dhulkooda dhulkii baa lagu biloobay intaan hayno inaan idinku wareejino oo la dhiso haddii la dhagax dhigo insha Allah waxaan u soconaa waa inaynu dalka hagaajino oo dadka hagaajino oo mustaqbalka daayirteena aan hagaajino imika waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland أولاً إلهي بمهد له نبتقليدا يوم أنت برواقضة نمعاد الروب كنين السيئي مهد بينون نقيناه نبتقليدا نحرس كوركي سها تحبيب كين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برصابك يوم ما يركا يسدوياش قبل كوردن حبناها كوميشنير هذا وقال سعود سعيد مدحضة برنامج كتيين يدي بقابين تشغالها هيدا كلا شقيا لنعاس ويل بانكا أقاسم واحد يدا هيدا شغالها الدولة ده يسيخا صونوسي أوسي سلطانكا محام كل هذا قرات كبا لما مرت الشرف لكلا قف كستا مجيسي ما موجيسة يو مزولية دي سبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الشيء وجدت صعود كي وها وحوي هيدا شغالوه وHR كدلك HR هو human resource كدلك وهيدا وضد بحاث هو معمولك تيينتا تابجلينتا حقسينتا شغالها قرن كجمهورية الصومالي الآن مركز سيدا تهينا واجب وي إن شغالوه جواب كستا أو كم بيد الصومالي حقي سي حقوق دي حق دلك كل يلا قدونه إن لا يسوافجيو ميل ووسو هجاجا يشرتو ولا يسكاسب عاصمة اللوجا قاضو نظام وناكسنه فن قبل اللوجا سمي قيب كتاي فلله الحمد إن نقبل ونو قبل كاودل شنت قبل بوا كصفر إن حفيش هذا كنا وهريي وحنو تجينا بربرة برعان وتجينا عرقابو محن كلا لاسعانات أنت بوا تجينا رجسنا حرونت باك فلان إن شاء الله labada wiiga soo socdayna hawshaas laga dhamaato waa rajaynaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa intaan dulucda hadalka gelin wasiirka wasaaradda deegaanka Marwo Shukri oo runtii sidii la sheegay xaqiiqana ahayd saddex gobol baa noqotay inaan xafiisyadooda hore u weyno maadaama aan doonayay saddexda bilood ee soo socda inaanu furro xafiisyada waxay noqotay in aanu talo madaxweynaha ku celino oo weydiino inaanu xafiisyadaas aad loogu baahanyay maadaama shaqada dabagalkeedii iyo adeegii dadka la siinayay iyo xaqii qofka shaqaalaha wixii ay ku xirantahay inuu xafiis ugu hagaago helo oo safarka inuu Hargeysa u tago oo ka yimaado Laascaanood ama inuu ka yimaado Ceerigaabo ama Boorama ka yimaado ama Seylac ka yimaado ay dib weyn ku tahay qofkii shaqaalaha qiimaha iyo koskii ku tagaysan Hargeysa yimaado waxay noqotay wasaaradda deegaanku saddex gobol in iyadu xafiisyo naga siiso oo inta xafiisyo aanu gaar u leenahay dhisanayno aanu iyada si isticmaalo xafiisyadooda qayb kamid ah oo iyadu xafiisyo waaweyn Soomaaliya Development Fund ka u dhisay waan filaya mashruucaas looga dhisay inay xafiisyadooda waaweyn qayb kamid ah aanu isticmaalo saddex gobol oo kamid tahay Awdal Laascaanood iyo meesha la Sanaag aad baan wasiirka ugu mahad celinayaa runtii waxay arintaasi suurto gelisay in maanta halkan ku yimaado waxay suurto gelisay in gaariga u doorto in la siiyo xafiiskan gaari cusub oo naahno adeegii dabagalka shaqada waa inuu isduu ku qabtaa waxay igu khasabtay inaanu qalabkii oo casri ah u keeno haddaba xafiiskan waxaan ugu talagalay waqtiina dalka waxa laga sameeyay diiwaangelin madax taabasho shaqaalaha ah waxa laga saaray oo liiskii ka baxay waxa la yiraahdo عاقلها وحلا يلاحظه ترى بالله وحلا laga saaray kun iyo waxoogaa dheeraada kun iyo waxoogaa qof kun iyo mishaar abdow 2300 qof aan ilaahdo 2300 qof oo caagla ayaa liiskii shaqaale laga saaray
liiskaasi maanta database-ka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Hargeysa iyo serverkeeda wuu ku jiraa qofka marka codsiga u horeeyna loo kale waxa loo doonayaa qofka ama bedel ama waxa loo doonayaa xaq ama waxa loo doonayaa markaba waxaan u diraa waaxda ku shaqada leh si ay uga soo baadho inuu daatada ku jiro ID leeyahay oo uu diiwaan gashan yahay oo wax la hayo maxay nagu haray hadaba waxay nagu haray wax la caadeyste caaglaynu aynu hawshiisa 80% dhamaynay 20% meelahaas ay nagu haray caadeystuhu waxa weeye qof dawladdiina mushahar ka qaadanaya aan una soo shaqo tagayn oo diiwaankii shaqada ku jira maalintii diiwaangelinta shaqaalaha la sameeyay intuu soo kalahay isdiiwaangeliyay laakiin dib aan ugu soo noqono meel kale ka shaqeeya waxaan leeyahay war xaraan bay ku noqonaysaa dhiig baxna waxay ku tahay dakhliga yar ee dawladda soo galay kooban ee aynu doonayno inaynu ummadda wax ugu qabanno kaas waxaynu doonaynaa waa sababaha xafiiskan loo furayo in dabagal lagu sameeyo marka wasaaradda maaliyadda oo u mahad celinayo wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo agaasimaha guudba oo runtii kaalin qiimo weyn leh ka qaatay dhiirigelinta iyo taabagelinta mashruuca barnaamijka la yiraahdo IFMIS-ka ee imika ay ku shaqeeyaan qaybaha maaliyadda iyo maamulku ee ah in lagu dalbado xisaabaadka habkii hore loo qori jiray loo bedelayo hab casri ah noqdo ayaa hay'adda shaqaaluhu waxay wadaa inay sameeyso mid la mid ah oo labadii la isku xidho oo ah Human Resource Information System ku xidhan serverkayaga iyo database-kayaga oo labadu markay isku xidhmaan payroll-ka laga dalaco halka waxa kaloo lagu sii xidhayaa kulay Axmed Baysay la socday oo qaybta noo qaabilsan in xafiis kasta oo wasaaradeed oo mustaqbalkan aanu doonayno heer gobol la gaarsiiyo in lagu xidho systemkii attendance-ka ee farta la saariyo oo wajigana ku shaqeynaya oo ku xidhan serverkayaga oo qofku markuu wajigiisa tuso hadduu wajiga u shaqeeyo waa in farta saaro kaarkii ID-ga shaqaalanimo hortiisa keenaya oo ka soo qaadaya serverka yaala xaruntayda xafiiskan fadhiya aniguna waxaan kala soconayaa screen yaala halka wasaarad walba oo leeyahay wasiirka ama agaasimaha wasiir maanta 120 shaqaalaha ugu weeyay 30 qura farta saare maxay ku dhacdaa horta halkaas aynu soconaa marka halka waxa ka baxaya ninkii loo jiray caadeyste waxa leeyahay marka habla iyo inamaba anagoo jecel inay dalka u shaqeeyaan oo qaranka u shaqeeyaan war waxa qaadanaysaana xaraan bay ku noqonaysaa dalkana dhiig bax bay ku tahay dakhliga yar ee kooban ee soo gala inuu dadaalayna inaynu ilaa ka u jilicsan iyo kii dalkan maartay maxaan ku dhahaa dadka gaboobay iyo waliba inoo tamaniyayna oo doonayna inaynu inteena shaqada ku daada ku noqotay soo tacabtayna inaynu hawlgab galino inuu sameeyno oo qoondeyno dakhli hawlgab lagu galiyo sida yartana shaqo loogu abuuro dakhligaynu doonayna inaynu caadaystahana wixii nagaga baxa sidii 2000 ka saaro liisaska shaqaalaha waa sababaha koowaad ee xafiiska aanu sameeyno waxa kale oo kamid ah xafiiska waxaanu sameeynaa oo kamid ah in ay noqoto dabagalka shaqada dhammaan shaqaalaha dhowr iyo 10 kun ee dawladda u shaqeeya iyo kuwa dawladaha hoose ee imika hay'adda shaqaaluhu qayb ka noqonayso ee xeerkii u dambeeyay la ansixiyay ku jira iyo kuwa hay'adaha dawladda ee aan marka hore u diiwaan gashan hay'adda shaqaalaha ee xeerka shaqaalaha ee cusub ee imika amendmentka lagu sameeyay ee tagaya golaha wasiirada iyo 16 siyaasadood ee habraac sharci ee madaxweynuhu wareegtada ku soo saaray ee xeerka ka farcama dhammaantood ujeedada shaqaalahaas oo dhan Somaliland looga gol leeyahay ee ka soo bilaabma agaasime ilaa halka u hooseysa waxa weeye in adeeg wanaagsan iyo horumar aynu shacabkeena iyo ummadeena iyo caruurteena gaarsiino si taasi u suurto gashana waxay qayb ka tahay in shaqadii la daba galo agaasimihi waaxda performance wiila socda Maxamed Yuusuf ee hay'adda shaqaalaha waa waaxda shaqada dabagalka shaqada waxay la socdaa agaasimihi waaxda qorsheynta waxay la socdaa agaasimihi waaxda tababarada waxaan uga jeednaa ay soo raaceen iyo madaxda mashruucba ay la socdaan inaanu gobol walba hubino habkan oo xafiiska u hirgelinay systemka tijaaba maanta lagu sameeynaya inuu ka shaqeynayo serverka ku xiran yahay halka maanta laga sameeynaya Axmed inuu joogan filaya Axmed baa jooga madaxii IT-ga tijaabo maanta gelinaya in systemku halkan waxaanu wadnaa wixii laga soo diiwaan galin jiray shaqaaluhu ee ID-ga ay ka qaadan jireen Hargeysa wixii laga bilaabo marka systemku imika shaqeeyo ee uu serverkayga la shaqeeyo waxay noqonaysaa in xafiiska hay'adda shaqaalaha ee gobolka laga hirgeliyo hadday tahay xaq halkan laga hirgeliyo hadday tahay hawlgab halkan laga xaqgeliyo hadday tahay shaqo la isku bedelayo ama shaqo la doonayo in la qaato halkan laga hirgeliyo oo ay halkan shaqada oo dhammi ka socoto dhammaan gobolada kalena qorshahan wadnaa waa sidaas waxaan rajaynayaa biin Ilaahi tacaala inay hawshaasi noqoto hawl
inoo midha dhasha dalka iyo dadkana mustaqbal wanaagsan iyo horumarina gaarsiisa isuduwayaasha isagoo bara saabkiina jooga oo mahad celinayo sidaan sheegayna bara saabku waa agaasimihii guud ee marka agaasimaha guud ee warshadaha ku wareejiyay ee igala wareegay markii wasiirka la magacaabay agaasimaha guud ee warshadaha maantana waxaan ilaahay ugu mahadnaqay isagoo bara saaba annaa halka joogo horena wasiirano halkan ugu yimi isagoo bara saabkiya waa runtii waan u mahad celinayaa dadaalka isna uu wado dhammaan isuduwayaashana waan uga mahad celinayaa dadaalka halkan ka wadaan shay waa muhiim shayga muhiimkii waxa weeye xafiiskani marka la eego structure-ka dawladnimo waa HR-kii shaqaalaha waan idin sheegay bara saabka wuxuu ka caawinayaa dabagalka shaqada iyo shaqaalaha waxa laga doonayaa attendance sheet-ka inay toos ugu soo xareeyaan bara saabkana ku socodsiiyaan ogeysiintana siiyaan xafiiska oo lala socdo bil kasta annaguna aanu helo report-ka waxa laga doonayaa inay idoo kale ku socodsiiyaan HR departments baa loo sameeyay wasaaradda hore imkaan u sameeyay intii aan joogay waaxda shaqada waaxda xuduudda shaqaalaha aanu sameeyay ujeedadeedu waxa weeye systemkan uu rakibayna attendance serverka ku xiran oo waaxdi ka shaqeynaysa waxa kale oo la wadaa in payroll-ka saxiix ku yeesho agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha wasaaradda kasta oo halku admin finance ka soo horeynayay payroll-ku wuxuu ku soo horeynayaa attendance sheet-ka si looga saaro caadaystaha iyo habsanka looga saaro marka dabagal xoogan baa la sameeyaa shaqadu waxay noqonaysaa in lagu abaalmarin iyo dalacaadi timaado oo shaqaalaha daraasadii marka waan wadnaa in la sameeyo kala saaristii darajada shaqaalaha oo la yiraahdo A1 A2 A3 A4 B1 B2 oo sidaa dalacaad ku timaado ilaa agaasimayaasha guud laga qaato shaqaalaha khibradda soo helay aqoonta wanaagsan ee u cuntama inuu madaxweynuhu ka xusho agaasimayaasha guud taacida ka midha dhalinaysa la doonayo gobol kasta waa isuduwayaasha iyo bara saabka dawladda dhexdeeda ka wakiila maayarka iyo golaha deegaankuna dawladdii hoose iyo deegaankiiba wakiil ka yihiin idinkoo isku xidhan baa la doonayaa in dadkii laga shaqaysiiyo si ummadda badan ee ina sugaysa ee inaga sugaysa adeega ee inaga sugaysa waxqabashada ee inaga sugaysa dhaqaalaha iyo siyaasadaha ka soo farcamaya aragtida fog ee madaxweynaha in lagu dhaqangeliyo in ilaa ka u liitay u hooseeyo ilmaha yari inuu xaqiisa ka helo waajibkeedii saaran waxa weeye waa kaas kaasaan anagu idinku dabagelaynaa isuduwayaasha markaa waxaan odhan lahaa inagoo ku ammaanaya dadaalkiina iyo shaqadiina waxaanu idinka doonaynaa inaad laban laabtaan shaqadii xilka iyo hayseen maanta isuduwahayga si gaar ah waxaan ugula dardaarmayaa maanta xafiis waad haysataa qalab waad haysataa system ku xidhan xafiiskii xagga iyo database-kii iyo serverkii waad haysataa gaari cusub waad haysataa shaqaale aanu ku soo kordhinay baa jirto wasaaradda warfaafinta guulaystayaashii intii aanu kala soo wareegnay 40 aanu kala soo wareegnay intii gobolka bar baan ka soo qaaday oo ku meeleeyay xafiiskaaga xafiisku yar yahay laakiin de waxa weeye kolba salaad walba waqtigeeda la tukadaa waynu ku meel gaadhaynaa waxaan doonayaa shaqada mudnaanteeda ninka laga doonayo waa adiga shaqada mudnaanteeda qofka laga doonayo waa adiga bara saabkuna waa warbixinta waa ka qaadanaynaa adigana toos waxaan kaaga qaadanaynaa la xisaabtan geliso isuduwayaasha kaliya shaqaalahooda dabagal shaqadii lagu sameeyo idinkana waxa la idinku doonayaa isuduwayaasha dhammaan in shaqaalihiin ku dabagashaan shaqada waxaynu daba soconaana waa kaliya shaqo maaha xaqii qofka shaqaalaha inaanu u diyaarino tababarkiisa inaanu diyaarino shaqadii lagu dabagalo saddexdu way wada socdaan marka xaq u leeyna waa ilaalinaynaa xaqa waajibkeed qaranka iyo dawladdu ku leedahayna waa ku dabagalaynaa qofkii hawsha la jaan qaadi waaya guddiyo anshaxba xeerka shaqaaluhu idin siinaya waa la idin soo qaybin doonaa maalin dhow 16 habraac sharci ee madaxweynuhu imika wareegtada ku ansixiyay ee ka farcama xeerka shaqaalaha imika la ansixin doono 16kaasi waxay sheegayaan qofku siduu shaqada ku soo galayo sida uu ku dalacayo sida lagu tababarayo sida lagu anshax marinayo sida lagaga saarayo sida howlgabka ku galayo mid walba foomkii lagu isticmaali lahaa iyo habkii loo mari lahaa way ku qorantay guddiyo anshax baa samaysanaysaan qofkii shaqadiisa ka soo bixi waay waajibku waxa weeye waxa xeerku siinaya digniin koowaad labaad saddexaad in la siiyo hadday kalifto markaa inuu ka soo bixi waayo shaqadiisa waa in laga saaro shaqada waajib sidoo kalena waxa qofkii shaqadiisa wanaag ka soo saaray ee dadaal geliya ee in ka badan intii loogu talay ka soo baxa in la liistaysaan si abaalmarin wanaagsan iyo dalacaad wanaagsan loo siiyo sida kan loo ganaaxayo way isba soconaysaa taasina biidni illaahi tacaala waxaan rajaynayaa ku soo koobayaa dee dadaal iyo gacmays qabsi baa laga doonayaa xafiiskana si rasmi ah u furaynaa maalinta nimanka aynu furo laga bilaabana waxa markaa waajibka xafiiskaasi uu shaqeynayaa dhammaan dadka gobolka awdal joogana inta aynu waxa kale oo isku dayaynaa waxaanu furi doonaa maxadkii tababarka shaqaalaha burco ka ku xigay aanu furaynaa waa boorame taana waa bishaaro weey si shaqaaluhu tababar wanaagsan u helaan
oo ay ugu helaan deegaankoodii soo qiimo badan ku bixin oo gaari aanay raacin waxaan u mahad celinayaa bara saabka iyo maayarka iyo isduwayaasha dhamaantood mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan ugu kalsoonahay una mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waa run waa ninkii aan ka tirsaday agaasimaha guud isaguna markaa wasiirka noqday duulista runtii xafiis habaysan buu igaga tegey xafiis habaysan oo dhisan buu igaga tegey oo ninka dee raadkiisa ninna waad raaci kartaa ninna ma raaci kartid runtii raad aan raaci karo oo wacan buu kaga tegey waa nin runtii hanan kara habeen kara wax ku kordhin kara hay'adda shaqaalaha intaa uu sheegay in ka badan buu kordhin kara waan ku kalsoonahay waana saaxiibkay qofka shaqaa ku saaxiibtaan ama si kale u saaxiibtaan waxaan ku saaxiibnay shaqada uu igu wareejiyey raadkii aan ku raacay ideaalkii ka sira ama ugu yimi baan runtii ku saaxiibnay waan ku kalsoonahay wax badan ma aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa tadhaniskana saa ula socda warsuduyaalow markaa idinku noqotaan ilaa madaxdii baa tihiin aad xafiisyadiina abba goobaha laydinka yeedho amba shaqadiina hagaajistaan ba shaqaalihiinuna hagaagi kara qaran wuxuu horumaraa shaqaalaha hormuudkii hagarli'i markay tacaa heganugu ahaadan hawshiya danaha guud heganugu ahaadan hawshiya danaha guud dee horjoogahoodow hawlkarkii wax qabaniyo hebadkan wax qabanay waa in ila kala hufaayo hal loo ogaadaa hebedkan wax qabanay waa in ila kala hufaayo hal loo ogaadaa oo halbeega guushiyo hilinkeenna nololeed higsi iyo dadaal adag ku hoggaan midnaa ficil qarankeennan hodanka oo halbeega guushiyo hilinkeenna nololeed higsi iyo dadaal adag ku hoggaan midnaa ficil qarankeenna hodanka